goorsheegta studio-gu waxay ku abaaran tahay 8 fiidnimo oo gow ah kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka halmaal ee barashada afka Netherlands. Caawana waxaan ku soo qaadan doonaa falal ama ficilo sida aad u taqaanaanba kuwaas oo loo baahan yahay in aad macnahooda aad qaybto. dabcan af walba markaad baranayso waxa loo baahan yahay in aad ereyo fara badan akhrido si aad hadhow u fahmi karto wada hadallada. ka faa'iideyso fursadan aad heshay ee afkaaga hooyo lagugu macnaynayo kuna dadaal inta aad awoodo in aad wanaajiso cilaaqaadka iyo barashada luqadda dal kasta oo aad ku nooshahay in muddo ah si aad u hesho ama ula jaan qaado fursadaha shaqooyinka iyo waxbarashada si guud mustaqbal wanaagsan aad u samayn karto. waxaan caawa idinla wadaagi doonaa falal ama ereyo inta badan la isticmaalo. dabcan fadlan barnaamijkani haddii adiga ku anfaco qof Soomaaliyeed oo walaalkaaga u gudbi si uu isaguna uga faa'iideysto waa haddii uu afka Netherlandska baranayo oo uu dalalka Netherland iyo Belgiumka degan yahay ama haddii uu mustaqbalkiisu dalkan ku xidhan yahay oo uu qof dalkan jooga ka soo qaadayo dunida inteeda kale. waxaa caawa markaa daawaha inoo saaran falal aan soo xulay tegenwoordige tijd iyo verleden tijdba waan sheegi doonaa weedhahan oo waan ku soo qaadan doonaa. waa fal jooga wax hadda imika dhacaya oo la samaynayo iyo verleden tijd wax hore u dhacay ficil maadi intiina carabiga taqaana ama past tense-kiisana waan soo qaadan doonaa Englishka intiina taqaana. waxay weedhahani markaa ka turjumi doonaan sida loo adeegsado wax imika dhacaya iyo wax hore u dhacayba. ereyadan tusaalaha caawa u soo qaadan doonaa waxaa ka mid ah aankruisen waa isku tallaab saar ama calaamad qalada saar. aankruisen wat van toepassing is. aankruisen wat van toepassing is. isku tallaab saar ama calaamad saar kuwa u baahan markaa in calaamad la saaro. kruis aan wat van toepassing is. isku tallaab saar halka ku habboon markaa ayaa lagaaga jeedaa imtixaanadoo kale ama iskuulkoo kale waa lagu odhan doonaa. ama haddii lagu soo diro foomyo guriga lagu buuxbuuxinayo kruis aan wat van toepassing is ayaa markaa ku qornaan karta. waa inaad isku tallaab saarto markaa halkii u baahan. ik heb nu al nee aangekruist. imika waxaan qalday oon isku tallaab saaray nee halkay ku qoran tahay. Ik heb nu al nee aangekruist. Doorlezen. Wada akhri. Ik ga het boek even snel doorlezen. Ik ga het boek even snel doorlezen. waxaan si degdeg ah u wada akhriyayaa boeken. U mag het doorlezen als u wilt. U mag het doorlezen als u wilt. waad wada akhrin kartaa haddii aad doonto. foomyo oo kale marka lagu siiyo ama marka waraaqo lagu dhiibo waxaa lagu oran karaa u mag het doorlezen als u wilt. waad wada akhrin kartaa haddii aad u baahan tahay. ik las door ama ik heb doorgelezen waa iyaguna falal tegay weeye. ik heb doorgelezen waan wada akhriyey. ik heb zijn uitspraak gisteren doorgelezen. Ik heb zijn uitspraak gisteren doorgelezen. Uitspraak waa go'aan. waxaan akhristay go'aankiisii shalay. halen waa soo qaad. haal alles wat we nodig hebben. haal alles wat we nodig hebben. inoo soo qaad waxaynu u baahannahay oo dhan. qof dukaanka u socdo dhan ama ilmahaaga oo kale wax u dirtay waxaad leedahay haal alles wat we nodig hebben. inoo soo qaad waxaynu u baahannahay oo dhan. haald markaa waa isaguna fal tegay. ik haalde haar vingerafdruk van de spiegel. haar vingerafdruk van de spiegel. waxaan ka qaaday ama ka tirtiray bay noqonaysaa markan raadkii faraheeda muraayad. muraayad bay markaa faraheygu saarnaayeen oo ay taataabatay ilmo yar ama qof weyn. marka waxaad leedahay markaa ik haal haar vingerafdruk van de spiegel af. gehaald
sidoo kale waa fal tegay isaguna. Hij heeft het gehad. Hij heeft het gehad. Imtixaan oo kale qofku markuu ku guulaysto waxaad leedahay hij heeft het gehaald ama zij heeft het gehaald. Waa uu ku guulaystay markaa, waa uu soo qaatay weeye. Ereyga doorstrepen waa xariiq dhexmari, sida aan xariiqa u dhexmariyey oo kale ayuu xariiq markaa loo dhexmarinayaa, ama jiitin ayaa la dhexmarin doonaa. Weet je wat? Deze mag je doorstrepen. Weet je wat? Deze mag je doorstrepen. Wax ma kuu sheegaa? Ereygan xariiq dhexmari markaa. Ereygan xariiq dhexmari baan ku leeyahay markaa. Streep door. Streep door wie je niet wil en geef de lijst terug. Xariiq dhexmari dadka aanad rabin, ina soo celi leeskan. Streep door wie je niet wilt en geef de lijst terug. Waarom heb je je naam doorgestreept? Waa fal tegay markan doorgestreept, ama doorstrepen of fal tegaya doorgestreept buu noqonayaa markaa. Waarom heb je je naam doorgestreept? Maxaad magacaaga xariiq u dhex marisay? Waarom heb je je naam doorgestreept? Inleveren. Inleveren waa soo celi. Waraaq la buuxbuuxinayo oo u baahan in la soo celiyo oo kale. Ik zou deze papier moeten inleveren. Xafiis oo kale, markaad waraaqa soo celinayso waxaad leedahay graag wil ik deze papieren, ama graag wil ik deze dossier inleveren. Inaan celiyaan rabaa. Ik zou deze papier moeten inleveren. Waxaan jeclaa in aan celiyo waraaqahan ama aan gudbiyo bay noqonaysaa markaa. Fal tegay hadduu yahayna levert in buu noqonaya markaa. Je moet je oude paspoort inleveren. Je moet je oude paspoort inleveren. Paspoortkaagii hore waa in aad soo celisaa. Je moet je oude paspoort inleveren. Ik heb mijn sollicitatiebrief niet ingeleverd. Waa fal tegay markaa. Ik heb mijn sollicitatiebrief niet ingeleverd. Waxaanan weli celin warqadii codsiga shaqada. Warqadahan shaqada lagu codsado kale haddaad iyagana gudbinayso waxaad leedahay ik wil graag mijn sollicitatiebrief inleveren. Warqadii ayaan rabaa inaan gudbiyo codsiga. Haddaanad gudbinna ik heb mijn sollicitatiebrief niet ingeleverd. Niet, taasi waxay sheegaysaa inaanad celin markaa. Lesgeven waa casharsiin ama darsi bixin. Lesgeven aan jonge kinderen is niet makkelijk. Lesgeven aan jonge kinderen is niet makkelijk. Darsi in la siiyo ubadka yaryar sahal maaha. Fal tegayna lesgeven waa hadda. Gaaf bay noqonaysaa markaa. Fal tegay weeyaan. Ik gaf les aan studenten op de basisschool. Ik gaf les aan de studenten op de basisschool. Waxaan siin jiray casharo ardayda dugsiga hoose. Markaa fadlan u fiirsa ficiladan markaad isticmaalayso fal jooga iyo fal tegay markaad isticmaalaysaba waa inaad u fiirsato sida markaa loo dhigayo. Ik heb les gegeven waa fal tegay oo kale. Ik heb les gegeven op de basisschool. Waxaan bixin jiray darsi ardayda dugsiga hoose. Onderstrepen waa hoos ka xariiq. Onderstrepen waa hoos ka xariiq. Ik wil een aantal zaken onderstrepen. Ik wil een aantal zaken onderstrepen. Waxaan doonayaa in aan hawlo dhowr ah hoosta ka xariiqo. Ik zal belangrijk punten onderstrepen. Ik zal belangrijk punten onderstrepen. Waxaan hoosta ka xariiqi doonaa qodobada ugu muhiimsan ama dhibcaha ugu muhiimsan. Onderstreep, markaa sidaa aan u dhigay, waa xariiq baa la hoos marinayaa ama jiitin. Ik wil zien wat jij onderstreept. Ik wilde zien wat je onderstreept. Waxa aan rabaa inaan arko waxa aad hoosta ka xariiqday. Anigoo darsi kuu dhigaya ayaan ku uhi wax hoosta ka xariiq.
waxaan ku weydiinayaa markaa ik wil zien wat jij onderstreept wixii aad hoosta ka xariiqdo dhan baan rabaa inaan arko oplezen waa kor u akhris oplezen waa kor u akhris weeye kunt u het voor mij oplezen kunt u het voor mij oplezen ma awoodaa in aad kor iigu akhrido kunt u het voor mij oplezen faltegay markuu yahayna wuxuu noqonayaa las op waa faltegay ik las op internet dat veel kinderen honger lijden er in Jemen. Ik las op internet dat veel kinderen honger lijden er in Jemen. Waxaan ka akhriyay internetka in ubad fara badani ay macluul iyo gaajo ula ildaran yihiin dalka Yemen. Ik heb dit artikel op internet gelezen. Waxaan qodobkan ka akhristay internetka. Overgaan, ereyga overgaan waa wax iska bedelaya xaaladu ku jiray una gudbaya xaalad kale. Ik hoor de telefoon overgaan. Waxaan maqlay telefoonka oo dhacaya ama telefoonka oo yeedhaya ayaan maqlay. Xaalad aamusan buu dabcan ku jiray dabadeedna telefoonkii ayaa dhacay sanqadh ayaa baxday waa la maqlay markaa telefoonkii wuu yeedhaya. Overgaan ging over ayay isku bedeshay. Je telefoon ging over. Telefoonkaagii ayaa yeedhaya ama dhacaya. Sida aad u taqaano markaa. Dadka af Soomaaligu ku yar yahay tusaale ahaan hadallada maldahan waxaa laga yaabaa inay la yaabaan ama ay yidhaahdaan ereyga maan maqal. Af Soomaaligu waa weyn yahay, waa ballaaran yahay, wuu badan yahay, alxamdulilah. Sida markaa haddii lagu idhaahdo cagaha wax ka day cagahaaga ma fiirfiirinaysid oo ma daydayaysid oo ma eegeegaysid waa orod weeye ama qofkaasi caguu wax ka dayay wuu baxsaday weeye. Telefon ayaa dhacayana waa sidoo kale waa la mid. waxaad taqaanay telefon dhulka ku dhacaya ayaad hore malaa maskaxiyan isleedahay telefonka dhulku ku dhacay laakiin telefon baa dhacaya waxa weeye telefon baa yeedhaya telefonkii baa qayliyay markaa weeye. waxa af waliba markaa waxa uu leeyahay hadallo maldahan oo sida loo sheegaya aan ahayn laakiin macno kale leh markaa grammarka dib loogu noqonaya. Ging over markaa waa xaalad buu ku jiray xaalad kale ayuu telefoonkiis ku bedelay. Je telefoon ging over. Ging over waxa kale ay noqon kartaa in aad la yiraahdo qodobkaas ayaa laga hadlaya ama ay ku saabsanayd weeye. waa wixii laga hadlaya la isweydiinaya. Waar ging het over? Waar ging het over? Het ging over inburgering cursus. Maxaa laga hadlayay? Waar gaat het over? Meelaha qaar markaad soo gaadho waxaad weydiin kartaa overgaan adigoo isticmaalaya waar gaat het over? Maxaa laga hadlayaa? waa maxay ku saabsan tahay arrintani? Waar gaat het over? Marka haddii fal tagay aan soo qaato waxaan leeyahay het ging over inburgering cursus. Het ging over inburgering cursus. Waxay ku saabsanayd sheekadu inburgering cursus. Waa casharada dadka waddanka ku cusub ee sharciga qaatay. Het ging over inburgering cursus. De erfenis is overgegaan van generatie op generatie. Waa fal tegay overgegaan. Overgaantii baan overgegaan. Marka waa fal tegay. De erfenis is overgegaan van generatie op generatie. Dhaxalku waxa uu u gudbaa ab ka ab. Dhaxalku waxa uu u gudbaa ab ka ab. Generation ila generation. Waa waalidka ayaa ilmihiisa dhaxalka u gudbiya. Verbetering. Ereyga verbetering waa hagaajis. Waa wanaaji ama dib u habaynun bay noqonaysaa. Wil je dat verbeteren? Wil je dat verbeteren? Ama wilt u dat verbeteren? Ma rabtaa in aad wanaajiso? waa waxaad qaladay baa lagu odhan karaa wilt u dat verbeteren? Ama wil je dat verbeteren? ma rabtaa inaad markaa wixii hagaajiso. Verbeterdena waa fal tegay. Het is een verbeterde versie van Windows. waa dib u habeen lagu sameeyey Windows. Windows markaa waa program Microsoft oo kombiyuutaradu ay ku shaqeeyaan. Apple
iyo Windows ayay u badan yihiin inay ku shaqeeyaan kombiyuutaradu marka waa fal tegay ik heb dat zelf verbeterd ik heb dat zelf verbeterd aniga keligay isku hagaajiyey ama isku habeeyey trekken waa cheat bay noqonaysaa trekken trek zo hard als je kunt trek zo hard als je kunt xoog u jiid inta aad awoodo trek een line xariiq markaa in aad jeexdo ayay noqonaysaa ama xariiq in aad qorto ayay noqonaysaa ik heb een lijn in het zand getrokken ik heb een lijn in het zand getrokken waxaan dhulka ka jeexay ama ku qoray ama ku sameeyey xariiq bacaadka badoo kale ayaad ku ag samaynaysaa uit het hoofd leren maskaxda ku qabo ama xafid ama dusha ka qayb unbay noqonaysaa uit het hoofd leren je moet dit echt allemaal uit het hoofd leren je moet dit echt allemaal uit het hoofd leren waa in aad intan oo dhan dhammaan xafido maskaxda aad ku qabato ik zal het uit het hoofd leren ik zal het uit het hoofd leren waan xafidi doonaa ama dusha ayaan ka qaybi doonaa ereyga kale aangegeven waa fal jooga gaaf aan waa fal tegey aangegevenna waa la mid isaguna waa fal tegey u dhiibid bay noqonaysaa ama u gudbin ama siin ama wargelin waa dhowr micno yeelan karaysaa kun je me dat aangeven alsjeblieft kun je me dat aangeven alsjeblieft waxaad leedahay fadlan miyaad ii soo dhiibi kartaa shay meel yaalla ayaad qof weydiinaysaa waxaad odhan kartaa kun je me dat aangeven alsjeblieft miyaad ii soo dhiibi kartaa shaygaas schat kan je een mes even aangeven gacalo ama macaan miyaad midi isiin kartaa weeye schat kan je een mes even aangeven meneer Jan gaf les aan mijn oudere zoon mudane Jan waxa uu u dhigi jiray wiilkayga weyn hij heeft zichzelf net aangegeven hij heeft zichzelf net aangegeven hadda ayuu isdhiibay waa tuug ama dembiile ama dhibaato nin geystay oo kale hij heeft zichzelf net aangegeven hadda ayuu isdhiibay aanraken waa taabasho raakt aan waa fal tegey aangeraakt nou waa la isticmaalayaa isaguna waa fal tegey je moet me niet aanraken ha itaaban je moet me niet aanraken je mag mijn spullen niet aanraken ma taaban kartid alaabtayda ik heb iets aangeraakt gaari oo kale haddaad wadato oo aad wax jiidhay ama dareentay waxaad leedahay ik heb iets aangeraakt waxbaan jiidhay ama waxbaan ku dhuftay gaariga aanstoten waa la mid waa wax isku dhacaya ama isjiidhaya weeye ama waa wax meel ku dhacay weeye ik stoot me aan een stoel ik stoot me aan een stoel waxaan jiidhay kursi ama waan ku dhacay kursiga hij stoot zijn teen aan de tafelpoot hij stoot zijn teen aan de tafelpoot fartiisii ama far ka mida faraha lugaha ayuu ku dhuftay miiska markaa lugihiisa ik heb mijn hoofd ergens aangestoten waa fal tegay marka aanstoten aangestoten ayay noqotay ik heb mijn hoofd ergens aangestoten madaxayga ayaan meel ku dhuftay ama madaxa ayaan meel ku dhuftay begroeten waa bariido ama bariidin ubadka oo kale ayaa waxaad ku leedahay ik wil dat jullie tante begroeten waxaan rabaa in aad eedadiin bariidisaan ama eedadiin inaad salaantaan ik wil dat jullie tante begroeten ik wil mijn vrienden graag begroeten waxaan doonayaa inaan asxaabtayda salaamo ama bariidiyo salaan iyo bariida waa isku mid ik wil mijn vrienden graag begroeten ik werd begroet door Rage Afilooge
waxa i salaamay raaga caafilooge waxa weeye markaa ik werd begroet waa lay salaamay weeye ik werd waa faltegay ik werd begroet door raaga caafilooge waxa i salaamay raaga caafilooge bespreken waa la hadlid ama ka wada hadlid weeye bespraakna waa faltegay besprokenna waa faltegay ik moet iets met u bespreken ik moet ama ik wil ayaad odhan kartaa moet qasab maaha ama ik wil iets met u bespreken waxaan rabaa in aan wax kaala hadlo wixii maad sheegin iets waa tidhi itsna markaa waa wax qofkii markaa isagaa kuu jawaabaya dat kunnen we nu niet bespreken dat kunnen we nu niet bespreken ayaa lagu odhan karaa taas kama wada hadli karno hadda ama imika kama wada hadli karno dwingen ku qasbid ama dirqin weeye qof la dirqiyayo ama lagu qasbayo wax je kunt me er niet toe dwingen je kunt me er niet toe dwingen iguma qasbi kartid je kunt me niet dwingen keliya haddaad tirahdana way dhan tahay niemand kan je dwingen om te trouwen niemand qofna kuguma qasbi karo guur dabcan waa guur aanad markaa adigu rabin oo kale niemand kan je dwingen om te trouwen hij wordt gedwongen om te vluchten waa faltegay markan hij wordt gedwongen om te vluchten waxa lagu kalifay in uu baxsado ama naftu orod ayay ku aamintay groeten waa bariidin ama salaan iyaduna groeten aan oma en de rest groeten aan oma en de rest ayeeyo igu salaam iyo dadka inta kale groeten aan oma en de rest je krijgt de groeten van iedereen je krijgt de groeten van iedereen dhammaan waa lagu soo salaamayey dad badan baa markaa soo salaamaya qofkaad la hadlayso je krijgt de groeten van cabdi oo keliyana waad odhan kartaa cabdi oo keliya ku salaamayey kennismaken ereyga kennismaken ama falkaasi isaguna waxa weeye isbarashada laten we kennismaken haddaad tidhaa laten we kennismaken bal aynu isbaranno qofkii adigoo gacanta u dhiibaya dabcan markaa ik wil graag kennismaken met uw familie ik wil graag kennismaken met u ik wil graag kennismaken met uw familie ik wil graag kennismaken met uw familie waxaan jeclaa inaan ehelkaaga barto idil en ik hebben net kennis gemaakt idil iyo anigu imika ayaan isbaranay haddadan baan isbaranay we hebben net kennis gemaakt haddadan ayaan isbaranay leen waa deymin ama amaahsiin weeye ik leen nooit geld aan mijn familie ik leen nooit geld aan familie weligay deyn ma siiyo ehelkayga familkayga wax ma amaahiyo hij leende 200 euro van mij leend markaa waa faltegay waxa uu iga amaahday uu iga deynsaday 200 euro ik heb geld geleend bij de bank ik heb geld geleend waa faltegay markaa by the bank lacag ayaan bangiga ka deynsaday ik heb nooit geld geleend ik heb nooit geld geleend weligay lacag ma aan deynsan nemen ereyga nemen waa qaadasho ama qaadid bay noqonaysaa naam dabcan waa faltegay genomenna waa la midoo isaguna waa faltegay nemen jullie alles mee nemen jullie alles mee wada gurta weeye alaab oo kale nemen jullie alles mee wada qaata alaabt nee hoor we kunnen niet alles meenemen ayaa lagu jawaabi karaa dabcan nee hoor we kunnen niet alles meenemen waxaan oo dhan mar keliya ma wada qaari karano maya ik nam een boek mee om te lezen ik nam een boek mee om te lezen
Waxaan qaatay boek aan akhristo. Ik nam een boek om te lezen. Ik heb een pijnstiller genomen. Ik heb een pijnstiller genomen. Markan waxay noqonaysaa kiniin ama daawo laxawga reebta. Pijnstiller markaa waa dawooyinkan karka ama xumadda iyo laxawga ku haya kaa yareeya ama kaa reebi karaa. Ik heb een pijnstiller genomen. Omhelzen waa hab markan aad qofka siiso ama aad isku dhegtaan oo kale qofka. Omhelzen. Laten we elkaar omhelzen en blij zijn. Ayaad ilmahaaga ku odhan kartaa oo kale. Laten we elkaar omhelzen en blij zijn. Bal aynu hab isa siino farxad awgeed. Hij liep binnen en omhelst me. Waa uu soo galay markaasuu hab ii siiyey ama igu dhegay. Overleggen waa tashi. Overleggen wada tashi ama wada hadal. Dabcan inta kalena waa fal tegay overleggen. Ik zal overleggen met mijn advocaat. Waxyaabaha qaar marka lagu weydiiyo ku saabsan marka wax dembiye ah iyo waxyaabo dhacay ama in kiis aad ku jirto ama in aad sharciyo wax sugayso waxaad leedahay wax lagu weydiiyo. Ik zal overleggen met mijn advocaat. Waxaan la tashanayaa lawyerkayga ama qareenkayga. Lawyer waa qareenkaygaan la tashanaya. Ik wil maandag met u overleggen. Ik wil maandag met u overleggen. Waxaan rabaa isniinta in aan wada hadallo ama aynu wada tashanno. Ik heb niet overlegd met mijn vrouw. Ik heb het niet overlegd met mijn vrouw. Lama aan tashan xaaskayga. En haddii aad dumar tahayna waxaad leedahay ik heb niet overlegd met mijn man. Saygayga kalamaan tashan weey. Samenwerken falkaasi wuxuu noqonayaa wada shaqayn ama wada jir in wax loo qabto. We moeten samenwerken voor een betere wereld. We moeten samenwerken voor een betere wereld. Waa in aynu ka wada shaqaynaa wanaagga dunida. Mijn broer heeft met Diriye samengewerkt. Mijn broer heeft met Diriye samengewerkt. Waa fal tegay markan. Walaalkay waxa ay wada shaqayn jireen Diriye. Jullie moeten samenwerken bij deze opdracht. Jullie moeten samenwerken bij deze opdracht. Ubadkaaga oo kale ama qof haddaad rabto inaad hawl u dirto waxaad leedahay laba qof ama dhowr qof ay yihiin waa in aad ka wada shaqaysaan hawshan. Jullie moeten samenwerken bij deze opdracht. Haddaad rabto inaad qof kala shaqaysana waxaad leedahay wij moeten samenwerken bij deze opdracht. Hawshan waa in aynu ka wada shaqayno. Samenwerken. Steunen. Steunen waa taageerid iyo iskaashi. Waa taageerid ama iskaashi. We zijn familie. We moeten elkaar steunen. Waxaynu nahay ehel waa in aynu istaageernaa. We zijn familie. We moeten elkaar steunen. We moeten elkaar steunen, jij en ik. Waa in aynu iskaashanaa labadeenu, adiga iyo aniguba. We moeten elkaar steunen, jij en ik. Hij heeft me altijd gesteund. Waa uu i taageeray weligii. Ama weligii wuu i taageeri jiray. Hij heeft me altijd gesteund. Ereyga teleurstellen. Waa niyadjab ama ka xumaasho. Ik wil je niet nogmaals teleurstellen. Ik wil je niet nogmaals teleurstellen. Ma rabo in aan mar kale ku niyadjabiyo. Ik ben erg in jullie teleurgesteld. Ik ben erg in jullie teleurgesteld. Aad ayaad ii niyadjabiseen. Toegeven ereyga. Toegeven waa qirasho ama ogolaansho. Runta oo aad iska sheegto weeye. Ama runta siday tahay oo aad sheegto. Ik moet toegeven, deze opdracht is heel moeilijk. Waxaan qirayaa inay hawshani adag tahay. Ik heb tenminste mijn fouten toegegeven. Ik heb tenminste mijn fouten
toegegeven. Waxaan ugu yaraan ogolaaday qaladkaygii. Voordringen waa qof xoog kugu dhaafaya meel queue ama fiilo lagu jiro ayuu dadka hormaraa oo uu jiirjiiraya. Marka qofka waxaad leedahay u mag niet voordringen meneer ama u mag niet voordringen mevrouw. Xoog iguma dhaafi kartid ayaad leedahay. Je kan niet zomaar voordringen. Waa qof fiilada lagu jiro raba in uu markaa ku hormaro ama xoog kugu dhaafo adigoo sugaya. Waxaad leedahay how. Je kan niet zomaar voordringen. Sidaasun dadka looma dhaafo. Die man dronk voor. Qof baad markaa u sheegaysaa. Waxaa lagu leeyahay waar heeft u over? Maxaad ka hadlaysaa? Die man, ninkaasi. Die man dronk voor. Waa fal tegey. Wuu i jiiday waanu iga hormaray markaa adiga meesha taagnaabaa markaa caddaanaysa. Hij dronk voor baad leedahay. Weggeven waa qaybin ama bixin ama ku wareejin bay noqonaysaa. We gaan wat prijzen weggeven ayay shirkaduhu yidhaahdaan. We gaan wat prijzen weggeven. Waxaan qaybin doonaa abaalgudyo. Prijzen markaa waa abaalgudyo ama abaalgud price. Ereyga wegsturen waa erin ama dib u celin. Qaxootigoo kale dib ayaa loo celiyaa. Wegsturen. U kunt mij niet zomaar wegsturen. U kunt mij niet zomaar wegsturen. Sidan iguma eryi kartid ama sidaasun iima celin kartid weeye. Xaqdarro markaa iguma celin kartid unbaad ka wadaa. Ik heb hem een tijdje weggestuurd. Ik heb hem een tijdje weggestuurd. Muddo yar ayaan qofka eriyey ama buriyey bay noqonaysaa. Waa qof oo kale. Ik heb hem een tijdje weggestuurd. Ereyga weigeren waa diidmo. Falka weigeren waa diidmo. Je mag je weldoener niets weigeren. Je mag je weldoener niets weigeren. Qofka wanaaga kuu fala ama samaha kuu fala lama eriyo ama lama diido markuu kuu baahdo. Je mag je weldoener niets weigeren. Waxba looma diido. Ze heeft geweigerd beneden te komen. Ze heeft geweigerd beneden te komen. Waa ay diiday in ay hoos u soo degto. Ama ze heeft geweigerd bij de deur te komen. Way diiday inay albaabka soo istaagto. waxaan filayaa inaan caawo casharka idinku badiyey. Waxaan intaas ku soo gabagabayn doonaa casharkii halmaal ee barashada afka Nederlandska. Tan iyo is arag maqalkeena dambe. Waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa meel kastoo joogtaan. Nabadgelyo iyo nolol.